buukoobka buugga galaangalka Israa'iil iyo siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka waxaa qoray John Mearsheimer iyo Stephen Walt. Horudhac awoodda saamaynta lagu dhex leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka. Badanaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka waxaa loo soo bandhigaa inay ku salaysan tahay u adeegista danta qaranka, amniga iyo xasiloonnida caalamka. Ha yeeshee qorshayaasha diblomaasiyadeed iyo horaarta siyaasiga ahba waxaa ka dambeeya shabakad murugsan oo saamaynaya galaangal siyaasadeed oo istiraatiiji ah ku dhex leh. Buuggan galaangalka Israa'iil iyo siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu soo bandhigayaa mid ka mid ah xoogagga ugu awoodda badan isla jeerkaasna dhaliyay doodo badan ee qaabeeya xiriirka dibadda ee Maraykanka, taas oo ah saamaynta xooggan ee ay leeyihiin kooxaha Israa'iil u qareema. Isaga oo aan qaadan haltabinnada fudud ee caadiga ah islamarkaana aan indha aragti shirqool ku eegayn, ayuu buugga diiradda saarayaa sida shabakad si wacan u abaabulan, siyaasad ahaanna firfircoon, ay saamayn baaxad weyn leh ugu yeelatay go'aamada siyaasadda Maraykanka, gaar ahaanna midda bariga dhexe ku wajahan. Si kastoo ay u kala duwan yihiin, haddana kooxaha ka midka ah shabakaddani waxa ay ka midaysan yihiin xaqiijinta in Maraykanku si hagar la'aana u taageera Israa'iil. Buukoobkani waxa uu sahminayaa qaabdhismeedka iyo istiraatiijiyadda galaangalka Israa'iil, saamaynta uu siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ku leeyahay. Sidoo kalena waxa uu tibaaxi doonaa raadka ay arrintaasi ku leedahay nidaamka dimuqraadiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, isaga oo faaqidaya guulaha u hirgalay iyo doodaha ku gadaaman awoodda kooxahan u qareema Israa'iil. Buuggani waxa uu dhanka kale furo u yahay isla markaan dhiiragelinayaa sidii loo fahmi lahaa saamaynta ururada danleyda ah, danaha qaranka iyo daynaamikada kakan ee siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka.